swimming keena ba soo qado okay meesha waxa loogu tala galay ciyaal yar yar iyo dadka waaweyn si fiican meesha ciyaalka yar odayga weyn wuxuu og yahay Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back with another video. Maanta muuqaalkeena wuxuu ku saabsan yahay sidatan. Yes, si fiican ma ujeedaa waryaa. Joy waay. Okay ma aha? Yes. Xabadeeda waay. Maasha Allah tabaarakallah. Waxaa meesha ku qoran haddii aad fahamsan tahay macnihiisa. Adiga i daawanayo hoos ku soo qor intii aanan u gudbin dadka enjoyaasha oo dhan. Waxaan doonayaa tiimkoo idil waa wada joogan. Mid ka mid ah inaan weydiiyo all qof walba garaadkiisa aqligiisa maskaxda ayaa adduunka lagu kala sareeyaa waxaa og tahay adduunka waxa lagu xukumo oo kaliya inay tahay maskax hub iyo xoog burodi iyo magaalada soo gali lahayn iyo muhammad magaalada burburi lahayn laakiin saaxiib xoog waxa ma tahay maskaxda la isku dhaaftay ereyga meesha ku qoran maskax weyn ayuu xambaarsan yahay mid walba ayaan doonayaa inaan weydiiyo qof walba fikirkiisa waxaan doonayaa laba tusaalo ama miisaal hadduu fasiro macnahan inuu ii sheego number 1 soo cameraman kapitaana imaan bolanya ayaa enjoy حتى mujeeda enjoy okay asiga akhrisanayo waa arkeen dadka already akhrisa marka the young man okay knows the rules but the old man knows the exception الأوادرك مساحة okay alawaadirka waa saxdi inkastoo meel yar qaar qajax ka jirto yeah enjoy the young man knows the rules but the old the young adosa the young maya the young okay the young alwa the young adosa the young man knows the rules but the old man knows the exception wow this is the right وانا كفسر enjoy okay I know SDB معناها او good يفسر marka okay هذا كان كفسر ها يفسر dadka yaa yari kula ilmaha waxay og yihiin ruulka macnaha wax sida loo dhaqmo the young man ilmaha ma naqa young waxa la dhalinyara enjoy dhalinyara dad yar isku mid lama maya kala duwaye afka Soomaaliya ana fasir maayno okay wiil waa naqan karaa wax waa naqan karaa enjoy okay waxay og yihiin sida loo dhaqmo si fiican okay dadka waaweyn waxay og yihiin exceptionka okay sida lacagta loo qaado reception كيف فديان exception sida lacagta loo qaado ma aha exception waxa la waxyaalaha diidmada okay aan ogolaan ama dhibka imaan karo yes okay waan fasirtay si Soomaali ahaan balse waxaan doonayaa si yaani oo maskax ahaan inaan u fasirtay معناها ay ku salaysan معناها كدوغن اوكي انجليزي كان معناها كدوغن يا سنجي اوكي معناها سيرتان جينا كو فسر اوكي waan fasirtay laba tusaale ii sheeg tusaale okay tusaale miniskeeda waxa waa enjoy ilmaha yar yar ama dhalinyarta ma aragtay aabahooda ka weyn waxa uu ogol yahay ama waxa gurigaasi ka soconeenin way wada og yihiin waxay ku dhaqmayaan rulkaasi okay aabahana marka waxa ay ogoleen ilmaha ma aragtay ama waxa uu xun uu og yahay wuuna ka celinaa markaas ama waxyaabaha dib u keena ama waxyaabaha caafimaadkooda u daran waxyaabahaas uu ka celinaa aan saasa u isticmaal lahayd waa mahadsan tahay gadaalan kaaga sheegi doonaa disaacada jeegta kale kabitaan xara saqiira xara adoo mahadsan saas soo jeesa xogaa yar ninkaa marawna ka duubo xara saqiira sidaa horta uu fasiraan uu waxba dadka ka beddelay way mid baa jirta afkaas kaliya may akhri aad u akhri the young man okay the rule is the all man okay the rule is the exception okay معناها good ما قرن كرتها yes tusaalo laba kamid ah sheeg hadii macnaha good fahamtay yani ingiriis kan hadalkiisa hadaa fahamtay macnaha good sheeg laba tusaale ay soo tahay waxa laga wadaa ilmahan yari aabihiis uu Amerika ruulka ugu sheegaya okay laakiin sidee ilmaha yari ruulka dee u fahansan lagula dhaqmo dadka waaweyn si fiican ninkan uu fahansan yahay de waalidka okay tusaale yar saasa waa ku noqona waa mahadsan tahay adeena diiwaan kaaga sheegi doonaa dhanka kale aan wareegi doonaa the one and only cameraman the one and only Kajal miya Mrs. Kajal Amina Abdiqaadir yes Amina noo akhri adigoo mahadsan saas miya
The young man knows the rules, but the old man knows the exception. yes horta waxaan kaaga mahadcelinay sida saxda ah oo correct ya the way it sounds ayaad u akhrisay okay macnaha waad akhrisatay waa fahamtay laga yaabaa haddii macnaha akhrisid waa fahamtay laba tusaalo sida loo isticmaalo hadalladan inta ku qoran ma noo sheegi kartaa Horta waan macnaynayaa haye ilmaha yaryar way ogyihiin sharciga sax laakiin qofka weyne ama odayga aan noqdo oday waxaa noqon karaa marka Waan qof ogahay, weyne odayga waa wuxuu sax. ogyahay waxa ka reeban sax tusaale ahaan ciyaalka yaryar biyahan maanta leel way cabi karaan Si tusaale fiican. biyaan soo qaadanaya maxaa saasaan kaa rabaa tusaalaha saas waa maanta leel no iska dhaaf waxaan ka dhigayaa waxa meesha lagu badaasho maxaad tirahdeen dabaasha swimmingkeenanba soo qabo okay meesha waxaa loogu talagalay ciyaal yaryar iyo dadka waaweyn si fiican meesha ciyaalka yaryar odayga weyne muxuu ogyahay wuxuu ogyahay in halkan dadka waaweyn loogu talagalay halkaasna ciyaalka yaryar loogu talagalay uu meesha ciyaalka una ku badaalan karin waa wixii ka reeban wuxuu og yahay lacala haddii ciyaalka yaryariiska meesha waaweynka haddii ay ku dabaasha inay dhimanayaan ay biyo cabayaan laakiin inay iyaguma khalkhal oga. geli karaan laakiin iyaguma oga maasha allah okay waa mahadsan tahay enjoya kamar bintu khaali isku day inaa number 1 akhrisid kadibna hal tusaale sida aana oo kale inaana siisid haddii fahamtay waaye ma isku dayga wuxuu ka wanaagsan yahay isku dayd la'aanta Sax. marka haddaan qaldanayaan lay qabanin anigu kulley Soomaali baan ahay Ingiriiskan saa uma aqaan Soomaali baan ahay sankunofla ku sareeya okay the young man knows the rules but the old man okay ma saxan tahay kana qosol ibdilada ku cidda okay the young man knows the rules but the old man knows the exception the exception okay macnaha ma fahamta haddaan isku dayo the young man ninka dhalinyarada ah knows wuxuu og yahay knows the rules wuxuu yaqaanaa sharciga ma fahantay okay bad laakiin the old man ninka weyn knows wuxuu og yahay the exception waxyaabaha laga helo dhibka imaanayo okay hal tusaale naga sii mar sida aad u isticmaali lahayd muhiimadda for example cunuga yariiska ah ma yaqaan waa dharagtay haye hadda cuno aad siisid adiga adoo cuno kala cunaya uu ku imaad aad siisid sidii uu rabaa cuno unkaan caloos la gediraysaa laakiin ninka weyn wuu og yahay inuu daragsan yahay uusan u baahnayn oo cunadaas anta ma siina limitkiis waa wuu gaaray og yahay ninka weyn enjoy waa sidaan u fahmay Si fiican. inay qaldanaa laga yaabo waa mahadsan tahay Sax waaye. dabana muhanad fadhiisa kaamir waa ka soo haray iiqaan ku jirnaa wallaahi dabadana laakiin jooga taata socod leeyahay markaas haddana waxaa waaye kabitaan muhanad ayaan weydiinaynaa hal mar noo akhri Hi guys. THEYOUNG. Okay, the young man knows the rules, but the old man knows the راح مسعوني مياه Okay. أريتان مركان معنا مثلا اسكت. أمر إنجليز كانوا سؤال مكو مخلين ساعة وحصل له قران. مكو مخلين نا أيوة مخلين. ما أنا إنه ولا مخلين ما إنجوي صرتي أنا ما أدري كمان بريتش واسع. هاي علي أنا مريق عليه Okay, the young man knows the rules, but the old man knows the exception, brother. الله يسلمك أنت أصلك عربي sax waaye okay macnaheeda noo sheeg Arrintan wuxuu ka hadlayaa difference u dhexeeya dhalinyarada iyo dadka waaweyn. okay Fahamtay? Si hore oo u sheegeen qaar naga mid ah oo weli badan macneeyay. sax Weli bay ka mid tahay dawna nool yaamina iyo ama iyo yes, okay. Arrintan waxay macnaheedu ugu muhiimsan ay tahay waxyaabaha ay og yihiin ama ay ku fikirayaan dhalinyarada. sax waxaa ka baawar sareeya dadka waaweyn siiba markaad tusaale ahaan idin soo qaato maanta wadda markaad maraysay adiga haddii kugu cusubtaan dhalinyaro ahaan waxaa laga yaabaa qofka kaa weyn inuu hor u maray welibana uu og yahay marxaladaha meesha ay ka jirto ama xaaladaha qasan meesha ka soo gaari kara iyo inay faa'iido leedahay iyo inay khasaaro leedahay ay garanayaan laakiin dadka dhalinyarada ah markay waddadaas qaadayaan waxaa u muuqda bis inay tahay waddo faa'iido yar yar ah ay ka heli karaan ahaan taas ayaa u muuqata waa mahadsantahay kabitaan maxaan dib aan ku sheegaynaa dhawan aan only noo soo dhawaaw dad fara badan way saxeen oo tiimka ka mid ah maskaxdooda ilaahay uu barakeeyo maasha allah si qurux badan ay ugu jawaabaan tusaalooyinkoodana
si fiican ay u saxeen si guud ahaan tayda ku soo hartay oo exactly haddii aan sheego the young man knows the rules but the old man knows the exception ninka dhalinyaraha wuxuu yaqaanaa oo keliya waxa aa u qortay ama waxa aa bartay waxa adig aa u sheegtay ninka odayga ah laakiin wuxuu garanayaa waxaan loo qoray horow u garanaa maxaa kuu sii dheer waxyaalaha qofkan aa u sheegtay waxa ka imaan karo hadhowdii haddii qaladkaas uu ku dhaco ama sidaas hadduu sameeyo dhibka ka imaan karo ayuu garanaa odayga muxuu kuu saacidaa maskaxdiisa da'diisa iyo enerjigiisa iyo experiencegiisa oo weynaanta ayuu kaashanaa tusaale maxaa kugu filan okay musqul ayaad isticmaashaa musqusha wuxuu leeyahay shower face wash mid kale oo rubuneeta yar lato baaldi yar oo ku jiro ma fahmaysaa baaldigaas baaldi ma garanaysaa sakeelo yes sakeelahaas ninka dhalinyaraha ee mar walba musqushaas markuu galo sakeelaha biyaha wuu hoorsanaa wuu isticmaalaa wuu ka soo tagaa baaldigii wuxuu ugu soo tagaa asagoo faaruq ah ninka odaygana mar walba musqusha markuu galo baaldigii biyaha ku jiro hadduu isticmaalo faaruq uu arko wuu furaa tubada markuu ka soo baxaya wuu buuxinaa sababta uu u buuxiyo mar walba intuusan musqusha ka soo bixin maxay tahay wuxuu ka fikirooyaa marka maalin tubada biyaha socoto ayaa laga yaabaa inay istaagto inay go'do oo kale adigana aad soo carartid musqushii aad fariisatid xaajidaada aad gudatid biyo meesha ku jirana aad weydid taas ayuu ku fikiraa number 1 fiirdaya maxaa ku soo haray number 2 tusaale yar kale ayaan ku darayaa taasoo ah waxa weeyaan waxaa jirto bahasha oo cunada lagu kuleysto magac maxaa u taqaanin microwave ayaa jirto ninka dhalinyaraha wuu garanaa sida loo shido sida loo damiyo iyo sida bareeska ama soketka loo geliyo okay ninka odayga ah wuxuu sameeyaa mar alaala markuu isticmaala ninka dhalinyaraha alaabtiisa uu kala baxo ninkana wuu damiyaa odayga wuu damiyaa bareeskana wuu damiyaa wuu ka saaraa dhulkuu dhigaa wuxuu ka fikiraa inuu qarax dhaco ama shoo dhaco marka ana hadalka adaa ku haystee Soomaalidu waxay ku maamaadaa ninkii tuu yar yahay ay tala ka boodaa geedna ka boodaa kawdhe aad iyo aad muuqaalkuna u dheeraaday aad iyo aad u dheeraaday kamuxume waxaa si fiican u saxay aamino tusaale yar oo kooban oo soo dhaweysay kamar ay ahayd hablaha waxaan rajaynayaa in yani fikradahooda aad iyo aad yani dhanka ragga sidoo kale Hey guys, sidoo kale waa soo daahis enjoy baxnayo. enjoy Anana ugu diyo isma shawra. next video document Bas video ka